بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلانتي xiisa khiyaartana dhageysanaysa ay ku soo dhawaada wararka telefishinka Hoggaanshi waa 25 bisha July sanada 2021 wararka telefishinka Hoggaanshi qodobada maanta idinku hayana waxa kamid ah doorashada aqalka sare oo la filayo inay ka bilaabato magaalada Kismaayo ee xarunta maamulka Jubbaland gudoomiyaha golaha baarlamaanka ee Koonfur Galbeed oo maanta magacaabay guddiga doorashada ee xubnaha aqalka sare oo ah xubno kamid ah baarlamaanka gudoomiyaha guddiga doorashooyinka heer federaal oo ku wajahan magaalada Garowe ee xarunta maamulka Puntland shir ay khadka Zoom-ka ku yeesheen ra'iisul wasaare Roble iyo madaxda dowlad goboleedyada oo fashil ku soo dhamaaday ciidanka xoogga dalka Soomaaliya oo sheegay inay qabteen madaxii howlgelinta u qaabilsanaa ururka Al-Shabaab ee gobolka Shabeellada Hoose afayeenka ciidanka booliska Soomaaliya oo xilkii laga qaaday dagaal baangado iyo mindiyo la soo adeegsaday oo ka dhacay degmada Doolow ee gobolka Gado xogayaha gaashaandhigga ee dalka Mareykanka oo ka hadlay duqeymihii ay dhawaan ciidamada Mareykanku ka fuliyeen koonfurta gobolka Mudug qodobadaas iyo kuwa kale ayaan idinku hayaa wararka maanta gudagale doorashada xubnaha aqalka sare ee ka imaanaya deegaanada Jubbaland kana noqonaya aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa la filayaa in ay 28 bisha tan ay ka dhacdo magaalada Kismaayo ee xarunta maamulka Jubbaland maanta oo ah 25 bisha ayaa la filayay balse waxa la sheegay in maanta la filayo in madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaan Axmed Madoobe uu soo gudbiyo xubnaha u tartamaya 8 xubnood ee aqalka sare ee Kismaayo lagu dooranayo xubnahaas ayaa marka maanta magacyadooda la shaaciyo waxa la filayaa biri iyo saa dambe in ay bilaabaan ololahooda ayna kaga dhaadhicinayaan baarlamaanka Jubbaland in ay doortaan waxaana la filayaa 2 maalmood oo ololaha kadib maalinta 28 bisha tan ah in ay doorashadu ka dhacdo magaalada Kismaayo halkaasna lagu doorto 8 xubnood ee ugu horeysay aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya oo ah xubnihii ugu horeeyay ee baarlamaanka Soomaaliya oo doorashada 2021 u soo baxaya gudoomiyaha golaha baarlamaanka ee Koonfur Galbeedna waxa maanta uu magacaabay guddiga doorashada ee xubnaha aqalka sare 11 xubnood oo kamid ah xubnaha baarlamaanka Koonfur Galbeed ayaa loo magacaabay in ay noqdaan guddiga doorashada ee la shaqeynaya guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed iyo heer federaal ee dowladda Soomaaliya ay horay loogu magacaabay xubnahaas ayaa waxa la filayaa in ay qabanqaabiyaan sidii doorashada aqalka sare ay uga bilaabmi lahayd magaalada Baydhabo dhawaaqidan ama magacaabistan ayaa waxay timid markii gudoomiyaha baarlamaanka Siciid Cali Fiqi waa gudoomiyaha baarlamaanka Koonfur Galbeed oo muddooyinkanba ku sugnaa magaalada Baraawe oo maanta ku laabtay magaalada Baydhabo Master Ciro oo ah gudoomiyaha guddiga doorashooyinka heer federaal oo maalmahan ku sugnaa ama shalay gaaray magaalada Kismaayo ayaa la filayaa 27 bisha tan inuu gaaro magaalada Garowe ee xarunta maamulka Puntland waxaana arrimaha uu tagayo kamid ah in madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni ay ka dhaadhiciyaan inuu liiska xildhibaanada aqalka sare uu degdeg u magacaabo si doorashada labaad ay uga dhacdo ama doorashadii aqalka sare ay uga bilaabato magaalada Garowe ee xarunta maamulka Puntland gudoomiyaha ayaa la filayaa in wixii arrimo farsamo u baahan ee ay rabaan in maamul goboleedyadu ay kala shaqeeyaan oo ay hadaba Kismaayo u joogaan ay Garowana madaxweynaha Puntland kala hadlaan shir ay khadka Zoom-ka ku yeesheen ra'iisul wasaaraha dowladda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble iyo madaxda maamul goboleedyada oo xalay dhacay ayaa la sheegay inuu natiijo la'aan ku soo dhamaaday shirkan qodobada ugu waaweyn ee looga wada hadlayay waxa ay kamid ahaa waxa uu ahaa qodobka ugu weyn ee looga hadlayay sidii loo xalin lahaa khilaafka ka dhex taagan siyaasiyiinta gobolada waqooyi waxaana la sheegay in xubnaha maamul goboleedyada ama madaxda maamul goboleedyadu ay la kala safteen ra'iisul wasaare ku-xigeenka Mahdi Guuleed iyo gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi taasna markii uu arkay ra'iisul wasaaruhu in shirku socon waayay la iskuna fahmi waayay uu go'aamiyay in shir kale la isugu soo laabto arrintan ayaa kamid ah caqabadaha ugu waaweyn ee hor yaalla doorashada la filayo inay dhawaan ka dhacdo dalka Soomaaliya ciidamada xoogga dalka ee Soomaaliya ee ka howlgala gobolka Shabeellada Hoose ayaa war ay baahiyeen waxa ay ku sheegeen inay qabteen madaxii howlgelinta ururka Al-Shabaab ee ka howlgalayay gobolka Shabeellada Hoose
ninkan oo nin ay sheegeen inuu aad muhiim u ahaa ayaa la yiraahdaa Cali Maxamed Aadan isagoo magaciisa afgarasadan lagu sheegay Said Xaaris war qoraal ah oo ay baahisay idaacad ku hadasha afka dawladda ayaa lagu sheegay afka ciidamada ku hadasha ayaa lagu sheegay in ninkaas lagu qabtay howlgal gaar ah oo ciidamada xoogga dalku ay ka fuliyeen gobolka Shabeellada Hoose. Gobolka Shabeellada Hoose ayaa ka mid ah meelaha aadka ay ugu dagaalamaan ciidamada dawladda Soomaaliya iyo ururka Al-Shabaab oo gobolkaasi uu ka mid yahay gobolada ay aadka ugu badan yihiin. afayeenkii ciidamada booliiska Soomaaliya ayaa la sheegay in maanta xilka laga qaaday. Xilka qaadistaas oo uu sameeyay taliyaha booliiska General Xijaar ayaa waxaa xilka laga qaaday afayeenkii ciidamada booliiska Cornel Sadiq Doodishe, waxaana xilkaas loo magacaabay Gaashaanle Cabdifataax Aadan Xasan oo ah isna Cornel ciidamada ka tirsanaa. xilka qaadistan lama sheegin sababaha keenay, balse waxaa arintan lagu sheegay in ay tahay khilaaf arrimaha dhanka booliiska ah iyo afayeenkaas oo lagu eedeeyay inuu shaqadiisii gudan waayay sida ay sheegayaan warar madax bannaan. dagaal baangado iyo mindiyo la isu adeegsaday ayaa la sheegay inuu ka dhacay degmada Doolow ee gobolka Gedo. dagaalkan waxa uu u dhaxeeyay laba maleeshiya beeleed oo halkaasi wada degan iskuna haystay muddooyinkii dambe dhul beera ah oo ku yaala duleedka degmada Doolow. dagaalkaas oo in muddo ah ilaa maanta socday ayaa la sheegay in ay ku dhaawacmeen ilaa 10 qof oo ay qaybtood gaareen dhaawacyo culus. dad badan oo ka mid ah kuwaas dhaawacmay oo ay baangado iyo midiyo ku dhaceen ayaa la sheegay in lagu daaweynayo isbitaal ku yaala degmada Doolow, iyadoo laga yaabo la yiri qaar ka mid ah dadkaasna in meelo kale loo qaado maadaama dhaawacyadoodu ay aad u culus yihiin. ciidamada dawladda ee halkaas ka howlgala ayaa la sheegay in ay halkaas ku bixeen inkastoo ilaa iyo haatan xiisadaasi ay weli taagan tahay. xogayaha gaashaandhigga ee dalka Mareykanka Lloyd Austin ayaa waxa uu ka hadlay duqeymihii dhawaan ciidamada dawladda Mareykanku ay ka fuliyeen gobolka koonfurta gobolka Mudug, waxaana uu sheegay in duqeymahaasi sababta keentay ay tahay inay ahayd dalab uga yimid ciidamada danab ee ka tirsan xoogga dalka ee ay tababaraan Mareykanku oo halkaas kaga jiray dagaal culus oo ay qayb ka ahaayeen oo lagula jiray ururka Al-Shabaab. isagoo la hadlayay idaacad ku taala dalka Mareykanka ayaa waxa uu sheegay in arintani ay tahay mid ay ku taageerayaan ciidamada dawladda Soomaaliya oo uu sheegay in ay bilaabeen howlgal aan horey looga baran kaas oo ay deegaano badan ururka Al-Shabaab ay uga qabsadeen. Lloyd Austin waxa uu sheegay in ciidamada dawladda Mareykanku ay taageero buuxda la garab taagan yihiin ciidamada dawladda Soomaaliya si ay isaga caabiyaan buu yiri ururka Al-Shabaab oo deegaano badan oo dalka Soomaaliya ka mid ah maamula. hogaamiyaha gobolka Amxaarada ee dalka Itoobiya isagoo maanta hadlayay wuxuu ugu baaqay dadweynaha gobolka Amxaarada ee dalka Itoobiya inay isu diyaariyaan guluf ba'an oo ay ku qaadaan waxa uu ugu tilmaamay jabhadda argagixisada ah ee TPLF. hadalkan ayaa wuxuu imaanayaa maalmo ay dagaal qaraar dhex marayeen ciidamada ismaamulka Amxaarada iyo jabhadda TPLF kuwaas oo ku dagaalamaya gobollo labada dhinac ay ku muransan yihiin. dagaalka Itoobiya ayaa wali waxa la sheegayaa in uu yahay mid aad xiisadiisu ay gobolkaas uga kacsan tahay. wararkii telefishinka Gaashan akhyaaray maanta waa naga intaas intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo.